meel walbaad joogtaan si walbaad noo maqlaysaan ku soo dhawaada saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn wararka caalamka iyo Soomaaliyaba waxaa kamid ah hogaamiyaha Ahlusunna ciidan wato gaaray gaalkacyo iyo wararkii ugu dambeeyay safarka Macalin Maxamuud qorshihiisa Puntland ayaad maqli doontaan xildhibaanadii Muqdisho yimid oo la sii daayay iyo Kenya war culus ka soo saartay xilliga la furayo kalfadhiga baarlamaanka labaad ee Jubbaland oo la shaaciyay xiisad ka taagan macdan qaali ah oo deegaano kamid ah Soomaaliland laga helay iyo Turkiga oo duqeyn ku dilay 2,000 oo askari oo kamid ah ciidamada dowladda Suuriya. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawade subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta aan channelkan soo gelino. waa subax Isniina taariikhda ay ku beegan tahay 2 bisha 3 sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada saaxiibayaal. aan ku bilowna Galmudug. hogaamiyaha guud ee Ahlusunna wal Jameeca Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax iyo ciidamo oo wato diyaarad qaas ah ay ka qaaday magaalada Dhuusamareeb ayaa gaaray magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug dhankeeda koonfureed oo ay Galmudug ka arrimiso. waxa uu Gaalkacyo oo sii gudbi doonaa magaalada Garowe kadibna Nairobi iyo Sacuudiga sida ay sheegeen qaar kamid ah culimada Ahlusunna. wafdiga waxaa kamid ah xubno kamid ah ururka Ahlusunna ee gobolada dhexe. waxa uu maalin ka hor ka badbaaday Macalin Maxamuud hogaamiyaha Ahlusunna in diyaarad looga soo qaado Dhuusamareeb kadib markii ay diideen ciidanka xoogga dalka iyo odayaasha dhaqanka beesha Ceer. Generaal Mascuud Maxamed Warsame oo wata ku dhawaad 40 askari oo ka tirsan ciidamada guutada 15aad gaar ahaan qaybta 12aad ee militariga Soomaaliya ayaa xalay ku hoyday magaalada Gaalkacyo isagoo shalay Dhuusamareeb ka raacay Macalin Maxamuud oo ku wajahan dalka dibadiisa. taliye Mascuud ayaa amniga Macalin Maxamuud ku sugaya magaalada Gaalkacyo ee dhanka Galmudug si uu uga soo gootiyo macalinka magaalada Gaalkacyo oo u socda dhanka Puntland. Mascuud oo mar kamid ahaan jiray ragga sarsare ah Ahlusunna wal Jameeca laakiin haatan ka tirsan dowladda ayaa dadaalkii ugu badnaa ku bixiyay inaysan dhicin xariga culimada Ahlusunna. hase ahaatee waxaa weli Dhuusamareeb jooga qaybihii kale ee hogaanka ururka uu ka mid yahay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo mar sheegtay inuu yahay madaxweynaha Galmudug. Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax oo doorka hogaaminta soo bilaabay waqti aad u fog ayaa siyaasad ahaan hogaaminta muuqata ku lahaa 12 sano ee la soo dhaafay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel. macalinka ayaana maalin ka hor wareejiyay ciidamadiisii ugu dambeeyay kadib dagaal dhowr iyo 10 saac qaatay oo uu la galay ciidamo ka kala socda dowladda iyo Galmudug. dowladda Kenya ayaa war ka soo saartay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya oo safar qarsoodi ah ku yimid Muqdisho. 11 kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Kenya oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee Nairobi sabab la xiriira safar ay ku yimaadeen Muqdisho ayaa la sii daayay. xogayaha wasaaradda amniga gudaha Kenya ayaa sheegay in 11 kan xildhibaan aan wax dacwo ah lagu soo oogi doonin. xogayaha ayaa intaas ku daray in xildhibaanada ay sharaxaad ka bixiyeen safarkooda isla markaana ujeedka safarkooda uu la xiriiray arrimaha amniga iyo waxbarashada gobolka Waqooyi Bari sida ay yiraahdeen. xildhibaanadan ayaa lagu eedeeyay inay Soomaaliya u safreen iyagoo aan soo marin nidaamka fasaxa saxda ah ee dowladda. sharci dejiyaashan Soomaalida ah oo laga soo doorto Mandheera iyo Wajeer ayaa garoonka lagu celiyay shalay kadib markii ay ka soo laabteen Muqdisho. booliiska ayaa weydiiyay su'aalo adag oo la xiriira safarkooda waxaana sidaasi laga soo xigtay ila wareedyo ku sugan garoonka Jomo Kenyatta. safarkooda ayaa yimid xilli ay xoosad xoogan ka dhex ogan tahay dowladda Soomaaliya iyo maamulka Kenya ay taageertay Jubbaland isla markaana ciidamo Soomaaliya ay ku sugan yihiin xuduudda dhanka Mandheera halka wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo dowladda Soomaaliya baxsad ka ah oo ciidamo ku haysta Mandheera oo ka tirsan Kenya. xildhibaanada Kenya ayaa laga doonayaa inay afhayeenka baarlamaanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda ogeysiiyaan ka hor intaysan safar ku aadin dal kale. dhanka kale xildhibaanadan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in loo geysan wax xarig ah. xildhibaan Maxamed Daahiyo Ducaale oo kamid ah xildhibaanadii ka socday dowladda Kenya ee ka laabtay Muqdisho ayaa sheegay in kulan dheer ay la qaateen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. xildhibaankan ayaa sheegay in socdaalkooda Muqdisho ay ka warhayeen madaxda ugu sareysa sirdoonka dalka Kenya isla markaana isla garsteen inay tagaan Muqdisho ayna kula soo laabtaan waxay kala soo kulmaan. xildhibaanka ayaa beeniyay wararka warbaahinta Kenya qaarkood ee ah in ay la kulmeen madaxa sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin. xildhibaanku uu warramay VOA ayaa yiri inagoo xildhibaano ah oo ka soo jeedna gobolka Waqooyi Bari ayaan ku tashanay inaan Muqdisho u tagno
in aan la tashano madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan kala tashano sidii aan iskaashi kala sameyn lahayn arrimaha amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab ogaanana qorshaha dowladda Soomaaliya waxa uu yahay. Xildhibaan Maxamed Daahiye Ducaale ayaa sheegay in markii ay soo baxayeen ay socdaalkoodii ku wargeliyeen madaxa sirdoonka dowladda Kenya maadaama arrintay u socdaan ay la xiriirtay amni, kadibna uu ka ogolaaday kana dalbaday inay kula soo laabtaan waxay dowladda Soomaaliya kala soo gurmaan. ugu dambeyntii xildhibaan Maxamed Daahiye Ducaale ayaa sheegay haddii ay dhici weyso in labada dowladood ay ka wada shaqeey waayaan ammaanka xuduudaha Al-Shabaab ay ku xoogeysan doonaan halkaasi. anagoo xildhibaaniin yaan tashanay waxaan go'aansanay inaan Soomaaliya u kacno oo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaan la soo arinsano oo iska weydiino runtii arrimahan amniga iyo shabaab iyo qorshaha dowladda Soomaaliya muxuu yahay iyo sida aan isku kaashan lahayn anagoo mas'uuliin ka soo jeedno gobolka North Eastern iyo dowladda Soomaaliyeed arrintaasaan u kacnay runtii marka shalay ayaan halkan ka baxnay anagoo 11 xildhibaane oo kasoo kala jeeda Gaaris, Wajeer iyo Mandera. markaan tagnay runtii dowladda Soomaaliyeed wayna soo dhaweeyeen heer wasiir garoonka ay nagu imaadeen. xalayna waxaan la shirnay madaxweynaha muddo 4 saacadood ku dhawaad marka runtii intaas horta socdaalka anaga haddii waan ku wargelinay runtii maadaama arrintan ay amni ku saabsaneed waxaan la hadalnay ninka nabad sugidda u weyn dowladda Kenya. arrintaasna aad buu soo dhaweeyay wuxuuna yiri wax alla wixii ay amni lagu heli karo haddii waa amni ay keenayso u kaca la soo shira wixii aad kala kulantaanna noo soo keena. marka anaga waxaan ognahay baraha bulshada weliba khaasatan kuwa Soomaalida inay warar fara badan lagu qoray oo la yiri waxaan la shirnay gudoomiyaha sirdoonka ururka NISA Fahdi Yaasiin inay lacagna la soo siiyey waxyaalahaas lagu qoray warkaasna war wax ka jiraan ma aha. markaana Jubbaland guddoonka baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland ayaa shaaciyay waqtiga uu furmaya kala fadhiga labaad ee baarlamaanka maamulkaasi. gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayaa sheegay in 7 bishan aan ku gudi jirno ee maaj uu furmaya kala fadhiga labaad ee maamulka oo muddo 2 bil fasax ku maqnaa. gudoomiyaha ayaa sidoo kale faray baarlamaanka inay soo xaadiraan kala fadhiga maalintaas. Cilaanka waxa uu tala galay in aan ku gaarsiino meel kastoo ay joogaan xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland kalfadhiga labaad oo furmaaya haddii Ilaahay cumrigu noo gaarsiiyo 7 bishan oo xirmay 5 bishii December ku xiraa muddo 2 bilood marka waxaan dhammaan xildhibaanada sharafta leh ee dowlad goboleedka Jubbaland ku wargelinaynaa in ay ka soo qayb galaan. baarlamaanka Jubbaland ayaa fasax galay 5 bishii 12 sanadkii 2019. xiisad dagaal ayaa ka taagan magaalada Hargeysa kadib markii macdan qaali ah isku qabsadeen maleeshiya hubeysan. golaha guurtida Somaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xiisad colaadeed oo ka dhex qaraxday beelo wada dega deegaanka sidan ee gobolka Sanaag. labadan beel ayaa si weyn iskugu dagaalsan macdan qaali ah oo laga helay deegaankaasi midaas oo dhalisay isku dhac labada beel ah iyo inay xiisadooda gaarto meel sare. gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Saleebaan Maxamuud Aadan Saleebaan Gaal ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay guddi nabadeed soo dedejiyay xiisada labada beel kuwaas oo safar ku tagi doona deegaanka ay xiisada ka taagan tahay. xiisadan ka dhex qaraxday labada beel ee wadadega deegaanka sidan oo meel xun gaartay ayaa waxaa daba socda kadib markii deegaankaasi laga helay macdan qaali ah. ugu dambeyntii markaana warkii dibadda Turkiga ayaa duqeyn ku dilay askar aad u fara badan oo ka tirsan militariga Syria. warbaahinta dalka Turkiga ayaa daabacday in dowladda Turkiga ay duqeyn ku burburisay saldhigyada ciidamada Syria ay ku leeyihiin magaalada Idlib ee dalkaasi. dowladda Turkiga ayaa sheegtay in duqeyntaasi ku burburisay 8 diyaaradood oo helicopter ah, 1 diyaaradood oo ah kuwa duuliye la'aanta ah iyo 100 taangi oo ay lahaayeen ciidamada Syria. wasiirka gaashaandhigga Turkiga ayaa sheegay in duqeyntaasi ay ku dileen 2,000 oo askari kuwa oo ka tirsan ciidamada militariga Bashar al-Assad oo ku sugnaa saldhigga weerarka lagu qaaday. sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in ujeedka laga lahaa howlgalkaasi uu yahay isdifaacid karana askarta Talis Assad oo weerar ku soo qaaday cutubyo ka tirsan Turkiga. duqeynta ay Turkiga la beegsatay saldhigga ay ku sugnaayeen ciidamada Syria iyo ku soo aaday xilli maalmo ka hor ay ciidamada Syria dileen 34 askari oo ka tirsan Turkiga.
madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa horey ugu hanjabay in jawaab military oo adag ay ka bixi doonaan weerarka ciidamo ka tirsan Asad ay ku soo qaadeen kuwa Turkiga. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in ciidamada Turkiga ay ka shaqeynayaan sidii ay u ilaalin lahaayeen dadka rayidka ah ee maxalliga ah iyadoo qayb ay ka yihiin heshiiskii Sebtembar 2018 ay la galeen Ruushka kaasoo mamnuucaya falalka gardarrada ah ee aagga dib u celinta laga sameynayo agagaarka Idlib. saaxiibayaal waa naga intaa qodobadii ugu waaweynaa wararka caalamka aad nagala socoteen haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe